waxaan hambalyeynaa un taageero aad iyo aad ah oo mul ku taageeraynaa go'aankii beesha bariga Burco ee habar jeclaa ka soo saartay ceelaf weyn go'aanka la soo saaray ninkii qaadan waayana waa daldumis kaasina ku loo baahan yahay maaha waxaan leenahay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankaasi waa go'aan muntafaca waa go'aan qiimo leh wakidalka lagu badbaadiyay nin walba ha taageero kula warbaahineedkan ay ku qabteen degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal odayaashii waxgaradkan ayaa waxa ay taageereen go'aankii ay soo saareen mid ka mid ah beelaha Soomaaliland sidoo kale odayaashii waxgaradku waxay shacbiga Soomaaliland ugu baaqeen inay codkooda ay siiyaan isbedelka waxaana hadaladoodu u dhignaayeen sidan halkan waxaan anagoo dadweynihii degmada Dila uqaasheedii waxgaradkeedii waxaan hambalyeynaa un taageero aad iyo aad ah oo mul ku taageeraynaa go'aankii beesha bariga Burco ee habar jeclaa ka soo saartay ceelaf weyn go'aankaasi oo ahaa kii waddanka lagu badbaadinayay aad baan ugu dirsanay waan sugaynay horena in lagu dhaqsaday waa laga habsaaman leenahay ku hadda soo saarteen waan lagu taageernay 100% cidii ka timaadana waa cid waddanka duminaysa oo meel kale laga wado wal go'aanka Soomaaliland ha qaato waa go'aan maxtarey sidaas oo kale say u taageereen xisbiga wadani ayaan u taageeraynaa horena aanu ahayn awal iyo aakhirba allana ducada inaga aqbalo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkan anagu degmada Dila oo qaasheedii iyo odayadeedii halkan ku joogna waxaan baaq taageero u dirinaa shirweynihii ceelaf weyn ee habar jecla halkaasi ay soo go'aamisay badbaado qaranna ay ka sameeyeen xusbiga wadanina lagu taageeray baaqban inay dirinaa waanan inagu ammaanaynaa horena inaga u badbaadiyay Soomaaliland maantana badbaadada aad gasheen waa too aan inagu hambalyeynayno annagoo degmada Dila iyo uqaasheedii waanad ku mahadsantihiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin anagoo halkan ku joognaa waxgaradkii degmada Dila waxaan halkan hambalyo uga diraynaa beesha bariga Burco shirkii ay ku qabteen ceelaf weyn ee ay go'aanka ku soo saareen ee badbaadada ahaa waxaan u leenahay aad iyo aad baan idin hambalyeynaa waad ku mahadsantiin badbaadada fiican ee aad gasheen ee dalka ku badbaadiseen horena waad u badbaadiseen hambalyo baan u leenahay go'aankii aad qaadateen ee aad ku taageerteen gudoomiyaha xisbiga wadanina iyadana waan qaadanay horena wadani waanu ahayn imigana waan nahay waxa kale oo aan rajaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo in dalka sida aad ugu gurmateen cid kasta oo wax garadihi ay ugu gurmato waana inay qaataan go'aanka la soo saaray ninkii qaadan waayana waa daldumis kaasina ku loo baahan yahay maaha waxaan leenahay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankaasi waa go'aan muntafaca waa go'aan qiimo leh wakidalka lagu badbaadiyay nin walba ha taageero wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kullay shir jaraa'idkan iyo hadalka iyaga taageerada ah waxa weyn waa hadalka wixii markaa looga baahnaa waa la sheegay intii badan waa la yiri waxa weyn intii loo baahnaa waa intaas baaq inaan soo jeedino markaa maxaa idinku taageero waxa weyn bariga Burco shirkiini markaa maxaa ku ceelaf weyn aad ku qabateen shirkaas ayaan waan soo taageernay aad baan idin taageernay aad baan idin ku raacnay waan ku diirsanay horeba waad badbaadin jirteen kana waxaan u haysanaa u jeedada aan leenahay waxa weey waa garta oo nu aragnaa inuu yahay badbaadadii ummadda reer Soomaaliland inuu yahay halkan waxaan ka taageerada beelaha Burco go'aankii ay soo saareen waan ku taageersanahay Bismillahir Rahmaanir Rahiim Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad kullay halkan shir jirayd baan ku qabanay iyadoo hal doorkii odayaasha reer Dila ay joogaan waxaan baaq dheer iyo baaq gaaban baa ku taageerinaa shirka qolada bariga ay ku qabatay magaalada ceelaf weyn waan taageernaa mar laadi mar saxad waan soo dhaweynaa waxaan sheegnaa in magaalada Dila sidoo dhan tahay xisbiga wadani aad baan u hambalyeynaa horna iyaga u badbaadiyay maanta iyaga mar labaad badbaadiyay mar labaad mar saddexaad waan ka sugaynaa inay badbaadiyaan dadka dadweynaha reer Dila reer Soomaaliland waxa ka cusubna in sidii qoladaas u badbaadiyeen iyaguna si lamid ay u badbaadiyaan aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala.